Hooyo waalan oo maskaxda looga jiro ayay ku ciyaaraan maalin walba si ay uga helaan views badan iyo sidoo kale muuqaalo kala gedisan. Markasta waxay dhahaan hees noo qaad, isla markaana waxay qaadaa quraan. أعديناك الكوثر فصل ربك ونهر إنا شأنيك والأبتر Maalin ayay ahayd mid wanaagsan oo dareenkeeda u taagnaa. Hooyadan waxay ka mid tahay hooyooyinka Soomaalida ee dhimirka leh isla markaana maskaxda looga jiro. Waxay dawarsataa jidadka laamiyada caasimadda dalka ee Muqdisho. Kuwa ayay u noqotay nugul, kuwa ayay u noqotay dhibana, maadaama ay u baahneyd xanaaneyn badan iyo daryeel. Inkastoo aysan helin hooyadan daryeelkii ay xaqa u lahayd, haddana dowlad daryeesho iyo sidoo kale dad gacanta ka qabtay geeyo meelo qurux badan ee xanaaneeya ayay weysay. Hooyadani waxay ku nooshahay caasimadda dalka ee Muqdisho. Madaxa ayaa looga jiraa, isla markaana waxay ahayd hooyo wanaagsan, laakiin mar qura ayaa la asiibay. Inkastoo caafimaadku uu yahay mid dhammaystiran, shalay way wanaagsaneyd, maantase waxay guranaysaa muraha waalida maadaama ay maskaxdu isku dardarsantay, dhimirkuna uu tagay. Kuwo badan oo caan raadisa, kuwo badan oo ku isticmaala barta TikTok-ga ayaa xilliyada qaar iyadoo ka dawarsanaysa jidadka ama ka tuugsata si ay u hesho maalintaas hadba waxay cunto. Waxay ka faki weysa qaarkood, kuwaasi oo muuqaalo ka duubaan isla markaana ku dhahaan akhri heesta. Qalbigeeda ayaa weli waxaa ka dhadhamayo aayadaha Quraanka Kariimka qolkii Eebbe, waxayna gocanaysaa Quraanku inuu yahay mid macaan. Markasta ay ku dhahaan akhri heesta, waxay akhrisaa Quraanka, inkastoo qaybo ka mid ay gafto, haddana maskaxdeeda waxaa ka guuxaya macaanida kalaamka Alle. Kuwaasi waa arxaanlayaal, isla markaana waa dhalinyaro ku sugan caasimadda dalka Muqdisho. Adigu qayb ka qaada in dareenka hooyanimadan iyo muuqaalkan dad badan gaaro, si ay u hesho hooyadan xanaaneyn iyo sidoo kale daryeel qurux badan, maadaama hadda aysan haysan guri iyo hoy ay u hoyato oo ay jiifato laamiyada, isla markaana wax kastay u nugushahay bahalaha iyo sidoo kale kuwa kale ee wax magaratada ah. Laakiin dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa sidan u rafaadinayaan hooyadii u istaagi lahaayeen. Hooyadu keliya maaha midda ku dhashay, ee mid kasta oo wadada ku dayacan, isla markaana da'deedu ay tahay da' hooyanimo, ayaa ah mid hooyo loogu waco. Waana dareen qiimo badan markii aan maqalno hooyo. Fadlan aan ka qayb qaadano caawinta iyo sidoo kale u istaagidda hooyadan ku dayacan bartamaha caasimadda dalka ee Muqdisho. Hooyo, Allah ku siiyo daryeel wanaagsan. Fadlan muuqaalkan like saar oo subscribe saar si ay dad badan kaga qayb qaataan, isla markaana hooyadan ku dayacan bartamaha caasimadda ay u hesho daryeel wanaagsan.